بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ولا ليال حرمينا ندين سوكديو فدي للريبي مالنتا جمعها marka imaamku khudbaynayo. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة أو الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحير صحابي قال لي رهدو معاذ ابن أنس نبي أيار ريبي maalinta jumcaha marka khadiibku khudbaynayo in loo fadhiisto ixtibaa ama xabwa ama xubwa. marka النهاية كتاب كاليرادو النهاية في غريب الحديث والأثر وابن أثير ليهي لبا صفو أيا مركا حبوها اللبوت الماما. مركا هو الرئيسة سيدا لو فريستو سيدا لو فريستو ويي حبوه تاسنا النبي قوار ريضي. waxaa kaloo sifo kale soo aroortay oo uu ku tilmaamay oo soo arooriyey in cumaamadda ama tuwaalka in sidaa loogu xidho iyadana oo sidaa la yidhaahdo noocaasna waa la tilmaamaa. marka sababaha ugu weyn ee loo reebay ama nebigu uu u nahiyey dhowr sababood baa lagu sheegaa. sababta ugu horeysa waxaa la yidhi waxay soo jiidaa ama ay keentaa lulmo ama hurdo oo qofkii sidaa u fadhiista khadiibka khudbadiisa ma dhegaysanayo. midda labaad ama sababta labaad ee loo nahiyey ee loo reebay waxaa la yidhi dadkii hore ay naga horreeyey waxay xidhan jireen gunti bay xidhan jireen. markay sidaa u fadhiistaan bay cawradoodu faydmi jirtay. marka cawrada fayditaankeeda darteed baa loo reebay oo loo nahiyey. sabab saddexaadna waa la sheegayo waxaa la yidhi qofka wayse qaba waxaa hadduu saa u fadhiiso waysadiisii baa buraysa. inkasta oo xadiidkan culimmadu ay isku khilaafeen sixadiisa laakiin waxaa la yidhi qolo waxay leeyihiin waa saxiix xasan, qolona waxay leeyihiin waa daciif. laakiin haddii uu qofku waxyaalaha aan soo sheegay oo isaga cawradiisu aysan baydmin ama hurda aysan u soo jiidaynin uu saa u fadhiisto wuu u fadhiisan karaa bay dhaheen. hada wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.